dhalinyaradu laba cillo ay leedo labadaasaan idinka digaya ku gabagabaynaya laba cillo ayaa jira laba xanuun oo ay u baahan yihiin dadka dhalinyarada inay iska ilaaliyaan xanuun dadku inta badan wuu yaqaanaa waa suuqgalka waa inuu ninku tasayub xumaha si fudud baa loo bilaabaa inta badan one step maanta sigaarka la tijaabiya 3 casho markaad isku qasabto maalin afraadana sigaar yacabaad noqonaysaa khamra maalin la yara tijaabiya maalin 7 khamriya yacabaad soo baxaysaa suuqa habeen ama laba la tijaabiya bariga dambena routine walada sabtida hadda wadada sii taagan ma noqonaysaa idan kaas waa inxiraaf waa tasayub waa in tareenka ka dhacdo haddaad sidaa uga dhacdana waxaa adag inaad soo noqoto bale waxaa laga yaabaa aakhiriya adduunba inaad baabaado kaa inta badan dadku iska waaniyaa mid dhanka kalaabaa isna jira dhalinyaradu markay cibaadada qabsadaan ee qumanaanta qabsadaan waxaa habboon iyagana in la hago aan la sii daynin in la hago waan la sii daynin qaar ba xagga kale uga dhaca maxaan uga jeednaa nolosha miisaankeeda ka luma dabeetana waxbuu tira badiya walow taacana ha noqotee dabeetana wax kale ku xadgudbaya مثلا عبد الله بن عمر بن عاص بهو غوري isagoo nin dhalinyaro ah markii loo guuriyay ninkana wuxuu ahaa nin quraan akhris badan oo soom badan habeenkiina uu taagayo quraan uu akhriyaa maalintiina salaad uu tukaa habeenkiina quraan iyo salaad buu wadaa maalintiina waa sooman yahay inantii loo meheriyayna kanafkeedaba ma taaban ilaa waa nin maalina sooman habeenna taagane aabaheed baa soo maro wuxuu yidhi war bal warrama inantii buu yidhi bal warran nicma rajul huwa rag isagaa u fiican bay tidhi mase arag macnaha bay u tilmaamtay u guud marta ragna waa u fiican iyo xumo ku sheegi maayo oo ninkaa soomane salaadaya ee dee cibaado u taagan reerna ma oga unbaa la leeyahay dabeetana nebigu uu sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yeedhay waxaa la yidhi sanaad ku wadaa sax maaha quraanka intaad ku akhridaa dee waa habeen kasta waan kaga tuuraa buu leeyahay waa dhameeya kadaa baa la yidhi bishii mar dhamee quraanka markaasuu yidhi maya waan ku xoog badnay iidaa ilaahay rasuulkiisa xoogayga ka faa'iidaystay haddaad 12 casho dhamee baa la yidhi ma ilaahay rasuulkiisa iidaa waa xoog badnay ka faa'iidaystay toddobaadkii mar dhamee ma waa xoog badnay ka faa'iidaysto war bal 3 casho mar dhamee baa la yidhi ma waan xoog badnay war halka laba dhaafo buu ku yidhi 3 casho laba dhaafay ka joog waxaa lagu yidhi war maanan soomaa waanan afuraa dan waxaa loo tilmaamay right wayga isagoo soon iyo salaad iyo quraan akhris ku jira waxaa loo sheegayaa xuquuq kale inay luntay maaha soon iyo salaad inay xuquuqda kale lumiso salmaan alfarisi ayaa ninkii la walaaleeyay abu darda abu ayub al-ansari si abu darda ayuu la seexday habeen buu yimi dabeetana waxa arkay xaaskiisiyo mariyo iska kuwii lagu shaqayn jiray iska sidata dee gabadh la qaba baan u ekayn maxaa dhacay buu yidhi waxay tiri walaalka adduunyadan kama leh aakhiru ku mashquulsan iyo meel kale habeenkii buu la seexday in yarba markii la jiifuu soo booday saxaabigii dabeetana salaad buu sii xidho war saxaabu ku yidhi salaad leena iska seexo waa ka celiyay abaan markii la joogu soo booday war saxaabu ku yidhi waa seexiyey goor dambe ayuu yidhi ka imika waa la tukada dabeetana wuxuu ku yidhi war dhagayso naftaaduna xaq bay kugu leedahay cidi kuma odhan habeen oo dhan soo jeeday habeenkii nafta u raaxee inna ilaahay caabud naftu xaq bay kugu leedahay ilaahayna xaq buu kugu leeyahay reerkaaguna xaq bay kugu leeyihiin buu tilmaamay waxaan waa xuquuq mid walba laga raba inaad gudbiso subaxii baa loo sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam salmaan run buu sheegay buu leeyahay sidaa uu salmaan sheegaa saxa waxaan uga dan leeyahay dhalinyarada xagga cibaadada timaadaana tatarufkan kale ku dhacaa inuu yidhaahdo anigu tacliinta ma iska daynaya waxba baran maayo
meel lagu xoogsi tagi maayo naaga qaban meel heer marmar maxaad qaban dabeetana socialkaad barayaysaa dabeetana masaajidka dhex fadhiyaysaa hada laysa bidiin wax sax maaha cibaadayso sax salaadaada ilaasho soonkaaga ilaasho been ha sheegin run sheeg cibaadayso laakiin noloshii activity-geedana waa cibaado kale ka qayb qaado waalidka u samafal mujtamacaaga u samafal dadka wax u qabo idan waxaan leenahay ku soo koobaya waqtigayga waa iska dhammaad baan filayaaye shaab nashaa fi cibaadati illaahi baa ammaanan laakiin labada tataruf midna diinta kuma ammaana inaad noloshoo dhan one sided ka dhigto oo noloshoo dhan aad si qura u aragto nolosha waa laynagu itixaamay ibtilaaga dhammaantii inaad gashaabaa loogu talagalay ee anugu waxaan ku jirayaa uun halka kani sax maaha saa awgeed waxaan leenahay dadka ammaanani waa dhallinyarada ilaahay caabuda ee aakhira ammaantaa leh cibaadadoodaasi dadka kale toddobada mawaaqif baa loo sugaya iyaga mowqif gaara looma sugan cibaadadooda mutlaq baa laga dhigay waxa cibaadadooda mutlaq looga dhigay bay leenahay inay noloshoo dhan ilaahay u hogaamiyaan labada tarafba waa xun yihiin markaa inaad tarafkaa cibaadada uga dhacdo tataruf u baxdid iyo inaad tarafkaa kale uga dhacdo tatarufka waxaa sababaana qofka dhallinyarado isagu iscajabiyo isku filaada oo aan weydiinin dadka ahlu cilmiga aqoonta dhaame agtiisa jooga aan wax weydiinin way hagi lahaayeen waxa sax ah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin